بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيجا صومالي دن أبدين سلام يا حواي وولدكم مصلح ملاي وحاتري أرمى بدن أو ميديا على حسابه أو هذا شلي ما أنت أدور نحكي حاجة بس عن حقيقة ذي الأوجين أو بس اللي رجعيه وحواي هرتا ويجرت حقيقة إن شلته إيش الأودعي شل كاسي قدر بهل حواي horta dadka waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnaheedu yiri gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax daawac soo gaari qaar waxay dhahayaan sharmo daawac la soo gaari qaarna waxay adu kolba si baa loo sheegay arrinkaas waxa way laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa way aniga maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay basna si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtu garanaysiin kulli marka dadka asxaabihiin way israacaan way ishaab magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna de waxa way mid loo kasinay ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ay ku timid waxa way qofka bil aadanka haduu waqtigiisa dhamaado أما وإلهي دمعه إنه وحكارسي يعتكر في كرتا حويرات مترتو وحاول حلقة إذا وحاول دعوي إن وقاري بدومي إن قبل قاري أن كوجيريو تي الله نحيف إلهي إيه كيجنا إن أول دقيقة سمري إيمان السيو نحرسي جنا نهكورا بيو قبل إن واحد حرس كوك شيء قاري ومركو قدومي يلين عدا قدر قبله إن مركو قاري قدومي markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in taqaddi furantay markii furantay ay gabadha dhinaca taqaddi ka dhacday laamigiina ay ku dhacday saasiid wax u soo gaareen ay ku geeyotay shantii kale ay saarneed gaariga meeka ka dhex bixin gaarigii dadka ku jiray waxa ay gaarin sharmaaka abdi naasir waxa way sidoo wax ma soo gaarin oo noo qaba alxamdulillah garaaf soo gaarin mid macalka gaariga saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga gooriyotay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa allah oo naxariisto ehelkayga sameeyay iimaan ka siiyo xawaaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegay anigu gaariga ma saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah nacad qaba ana caafimaad qaba laakiin xoolaha inkastoo isoo gaartay shock iyo naxdin oo hadda ilaa ugu jira xawaaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraan waxa waaye qadar baa dhacay oo qofka bil aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye haduu shil dhaco qofka bil aadanka waa la xisaabtamaya arrinkaas sharmana wixii ugu xayran yahay wax kale maaha gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isla dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saaf kartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhna soo aasnay labadii reerona way wada hadleen waan isaf karteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa isaf kartay wax dhibaato meesha jirana ma jiraan Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bil aadanka markii dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka wala alkaaya ama cadowga la noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaan dad Soomaaliyeed in la bomboniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo wada qaali noo ah waxa way arrin aad fool xun weey waxaan Soomaaliya u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii bombonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oo quraan marino ayaa laga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay on micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada ka gubo waxa waaye midda kale horta sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada doogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaalay noqday oo alqaali inuu wada nahay Soomaaliya shalay sharmaake markaan Djibouti wada aadanay Djibouti u wadaayay wax micnihii qabiil ama qabiilada oo dhaxshaysay ma ahayn wax horumar inoo soo kordhay
iyada ahayd inanoo kuda faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno oon micnihii dalkii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas aniga iyo Sharmaaka aan yeelay waxaan ku heshiis ku gaarnay haddii marba aan isku raacnay oon masraxii qurxinay oon dadka shacabka inoo soo jiidanay in aynu xagga labadan aanu ku kala hadhin oon meel walba Soomaali leedahay insha Allah in aadno oon qurxsano oon dhalinteena iyo dadkeena baan soo caawinay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhamaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno oon dalkii ku soo wareegno oon qurxsano wax kale ma ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkan inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay in aadno Puntland inaynu aadno Khaatumo State micnihii inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba anaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba way ku noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag way ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arinku saas ku jira saasuna u jira soo duceeya insha Allah rabbana dhamaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga Soomaaliyeed dhan aad baan idin salaamaya waxaa waaye walaalka maslax bilaye waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo waxaa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalayta hore shil u dhacay shilkaasi qadar bay ahayd waxaa waaye horta dadka waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii yidhi gaariga waxaa saaraa Sharma iyo Maslax iyo asxaab kale oo Maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan Sharma dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adigu kolba si baa loo sheegay arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idin sheego waxa waaye aniga Maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay Sharma iyo asxaabtood garanaysiin kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixay ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasinay ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxa waaye qofka bini'aadankana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi kartaa haba yaraatee ma jirto waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay Allah naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay shantii kale ay saarneed gaariga meeka ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa ay gaarin Sharmaaka Cabdi Naasir waxa weeye isagana wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah wax garaadka soo gaadhay midna macalka gaariga saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliya ayaa wax ku noqotay oo ka geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah u naxariisto ehelkeygana samriye iimaan ka siiyo waxa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegay anigu gaariga ma saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah nacad qaba aan caafimaad qaba laakiin xogaha inkastoo ay soo gaarto shoog iyo naxdin oo hadda ilaa igu jira waxa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay Sharma xabsiga ku jiraan waxa waaye dee qadar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadanka waa la xisaabtamaya arrinkaas Sharmana maxay ugu xayran yahay wax kalena maaha dee gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isaguna dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saaf kartay gabadhiina alxamdulillah waa la aasay gabadhina waa soo aasnay
labadii reerona way wada hadleen waan is afkarteen in la heshiiyey oo markii gabadha la bixiyo yaa isku afkartay wax dhibaato meesha jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markay dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowga ha noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaali nahay in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo wada qaali inoo ah waxa weeye arrin aad u foolxun weeye. waxaan Soomaalina u sheegayaa walaalahay wixii dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oo quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada ka gudbino. waxaa waaye midda kale horta Sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada ogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo alqaali aynu wada nahay. Soomaaliya shalay Sharmaake markaan Jabuuti aadaynay in Jabuuti u wadaayay wax micnaheedu qabiil ama qabyaalad oo dhex socota ma ahayn wax horumar noo soo kordhay iyada ahayd inuu ku faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno oon micnaheedu dalkii labaad ku soo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas aniga iyo Sharmaake aan yeelay waxaynu ku gaarnay haddii marba aan Jabuuti isku raacnay oo maslaxii qurxinay oo dad shacabka inooga soo jiidanay in aynu xagga labadeen aanu ku kala hadhin oon meel walba Soomaali leedahay insha Allah inuu aadno oon qurxsano oon dhalinteennii iyo dadkeena baan soo caawinay inaga ahayd. waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhamaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno oon dalkii ku soo wareegno oon qurxsano wax kale laga ma ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo fahmayaan arrinkan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay in aanu Puntland inaynu aadno Khaatumo State micnaheedu inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba anaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba ku noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag bay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato naga adiga xumaan bay ku noqonayaan. marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arinku saas ku jira saas u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيجا Soomaaliya dhan aad baan idin salaamaya. waxaa waaye walaalkii maslax leeyahay waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo. waxaa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalayto shil u dhacay shilkaasi qadar bay ahayd. waxaa waaye horta dadka waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii yidhi gaariga waxaa saaraa Sharma iyo Maslax iyo asxaab kale oo Maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan Sharma dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adigu kolba si baa loo sheegay arrinkaas. waxaa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idin sheego waxa weeye aniga Maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay Sharma iyo asxaabtooda garanaysiin kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixda ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasinay ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ay ku timid. waxa waaye qofka bini'aadankana hadduu waqtigiisa dhamaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraha ma jirto. waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay Allahu naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo. gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay
markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daaqadii furantay. daaqadii markay furantay ay gabadhii dhinaca daaqadii ka dhacday, laamigiina ayay ku dhacday. saas iyadu wax usoo gaareen ay ku geeriyootay. shantii kale ee saarneyd gaarigii may ka dhex bixin, gaarigii dadka ku jiray waxa may gaarin. Sharmaaka Cabdinaasir waxa weeye isagana wax ma soo gaarin oo uu noo qabaa alxamdulilah. wax garaadka soo gaadhay ma jiro, macalladkii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulilah. waaye gabadha keliyaati ayaa wax ku noqotay oo ka geeriyootay. waxaana leeyahay qadar way dhacdaa, allah u naxariisto, ehelkeygana sameeyo imaana ka siiyo. waxaa waaye arrinka kale leeyahay saan idinku sheegana anigu gaariga maan saarnayn, waxba ima soo gaarin alxamdulilah. waan nacdad qabaa, waan caafimaad qabaa. laakiin xoogaha inkastoo ay soo gaarto shoog iyo naxdin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira. waxaa waaye sidoo kale alxamdulilah. waaye arrinka kale leeyahay Sharma xabsiga ku jiraan waxaa waaye dee qadar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado, waxaa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadanka waa la xisaabtamaya. arrinkaasoo Sharmana maxay uga xayran yahay, wax kalena maaha. dee gabadhana reerka kasoo jeedaayo dad baa dhalay, isagana dad baa dhalay reerka kasoo jeeda. waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyey, waa la saaf kartay. gabadhiina alxamdulilah waa la aasay, gabadhina waan soo aasnay. labadii reeroodna way wada hadleen, waana saaf karteen in la heshiiyey oo markeedii gabadha la bixiyo yaa la saaf kartay. wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markay dib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowgaaba ha noqdo. marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto, macnaheedii loo duceeyo, iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaali nahay. in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo, views laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof naga baxay oo loo qaalay noo ah, waxaa weeye arrin aad u fool xun weeye. waxaan Soomaalina u sheegayaa walaalahay wixii dhacay u dhacay. arrinkaa yaa la sii boonboonin oo yaan wax lagu sii tirtirin. qof baa inaga baxay, inaynu u ducayno oo quraan marino ayaa laynooga baahan yahay. maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcadda ka digno. waxaa waaye midda kale horta Sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada ogtiin, waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay. Soomaaliya shalay Sharmaake markaan Jabuuti wada aadaynay, in Jabuuti u wadaayay wax micnaheeda qabiil ama qabyaalad oo dhex socota ma ahayn, wax horumar noo soo kordhay iyada ahayd. inoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno, oon micnihii dalkii labaad aan kusoo wareegno, oon sumcaddii iyo quruxdii yaa soo bandhigno. maadaama saas aniga iyo Sharmaaka aan yeelnay, waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan Jabuuti isku raacnay oon dee masraxii qurxinay oon dad shacabka indhoogi soo jiidanay, in aynu xagga labadeen aanu ku kala hadhin, oon meel walba Soomaali leedahay insha allah aynu aadno oona qurxsano, oon dhalinarteena iyo dadkeena baan la soo caawinay inaga ahayd. waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhammaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno, oon dalkii kusoo wareegno oon qurxsano. wax kale laga ma ahayn. kolley dee dadka aqalka saaxiibka oo way fahmayaan arrinkaana inaan si kale loo dhigin. koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay inaynu aadno Puntland, inaynu aadno Khaatumo State, micnihii inaynu aadno Jigjiga, inaynu aadno Somaliland. intaba annaga waxay nooga ahayd inaan dadkeena aan waqti la qaadano. xumaantada iyo wanaagga sidaad adigu labadaas aad ka dhigato wax walba way kuu noqonayaan. haddaad adigu wax wanaag ka dhigato wanaag bay kuu noqonayaan, haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay kuu noqonayaan. marka insha allah waxaan aad baan idiin salaamayaa. arinku saas ku jiraa, saasuuna u jiraa. soo duceeya insha allah rabbana dhammaanayaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalahayga Soomaaliyeed oo dhan aad baan idiin salaamaya. waxaa waaye waa walaalkii maslax bilaye. waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya, balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo. waxaa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalayta hore shil u dhacay
shilkaasi qadar bay ahayd. waxaa waaye horta dadka waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii yidhi gaariga waxaa saaraa Sharma iyo Maslax iyo asxaab kale oo Maslax dhaawac soo gaaray. qaar waxay dhahayaan Sharma dhaawac la soo gaaray, qaarna waxay adoo kolba si baa loo sheegaya arrinkaas. waxaa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idiin sheego waxa waaye aniga Maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn. anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay. balse nasiib ahaan walaalkay Sharma iyo asxaabtooda garanaysiinta kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan, way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan. gaariga 6 ku saarnaayeen 4 wiil iyo 2 gabdhood. qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasina ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ayay ku timid. waxaa waaye qofka bini'aadankana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta haba yaraatee ma jirto. waxaa waaye halka iyada ah waxaa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay. gabadha gaariga ku geeriyootay Allahu naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo, naxariistii jannada ha ka waraabiyo. gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqadii. gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday in daaqadii furantay. daaqadii markay furantay ayay gabadha dhinaca daaqadii ka dhacday, laamigiina ayay ku dhacday. saas iyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay. shantii kale ee saarneyd gaariga may ka dhex bixin, gaarigii dadkii ku jiray waxay may gaarin. Sharmaaka Cabdinaasir waxaa waaye isagana wax ma soo gaarin oo uu nabad qabaa alxamdulilah. wax garaadka soo gaadhay ma jiro. macalladkii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulilah. waaye gabadha keliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay. waxaana leeyahay qadar way dhacdaa, allah u naxariisto, ehelkeygana sameeyo iimaan ka siiyo. waxaa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegana anigu gaariga ma saarnayn, waxba ima soo gaarin alxamdulilah. waan nabad qabaa, waan caafimaad qabaa. laakiin xoogaha inkastoo ay soo gaadhay shoog iyo naxdin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira. waxaa waaye sidoo kale alxamdulilah. waaye arrinka kale leeyahay Sharma xabsiga ku jiraan waxaa waaye dee qadar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado waxaa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadanka waa la xisaabtamaya. arrinkaasoo Sharmana maxay ugu xayran yahay wax kalena maaha. dee gabadhana reer kasoo jeedaayo dad baa dhalay, isagana dad baa dhalay reer kasoo jeeda. waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyey, waa la saaf kartay. gabadhiina alxamdulilah waa la aasay, gabadhina waa soo aasnay. labadii reerona way wada hadleen, waana saaf karteen in la heshiiyey oo markii gabadha la bixiyo yaa la saaf kartay. wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markay dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaya ama cadowga ha noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo. iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaali nahay in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo, fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof naga baxay oo loo qaalay noo ah. waxaa weeye arrin aad u foolxun weeye. waxaan Soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinkaa yaa la sii boonboonin oo yaan wax lagu sii karkarin. qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oo nu quraan marino ayaa laynooga baahan yahay. maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcadda kaga gudbino. waxaa waaye midda kale horta Sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada ogtiin. waa qof aniga walaal ah iyo walaalay noqday oo walaal qaali aynu wada nahay. Soomaaliya shalay Sharmaake markaan Jabuuti aadaynay in Jabuuti u wadaayay wax micnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhex socota ma ahayn. wax horumar noo soo kordhay iyada ahayd inuu ku faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno oon micnaheedu dalkii labaad ku soo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno. maadaama saas aniga iyo Sharmaaka aan yeelay waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan Jabuuti isku raacnay oo dee maslaxii qurxinay oon dadka shacabka indhoogi soo jiidanay in aynu xagga labadeen aanu ku kala xadhin oon meel walba Soomaali leedahay insha Allah inuu aadno oon qurxsano oon dhalinteena iyo dadkeena baan soo caawinay inaga ahayd
waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhamaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno oon dalkii ku soo wareegno oo qorsano wax kale ma ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno qorshaysnay in aadno Puntland inaynu aadno Khaatumo State micnaheedu inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba anaga waxay nooga hayeen inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaaga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba ay ku noqonayaan haddii aad wax wanaag ka dhigato wanaag bay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arinku saas ku jira saas u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هيدا صباحي دن أبدين سلام يا حواي وولدت مصلح بداية waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kalba si loo dhigayo waxaa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalayto shil u dhacay shilkaasi qadar bay ahayd waxaa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii dhiirin gaariga waxaa saaraa Sharma iyo Maslax iyo asxaab kale oo Maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan Sharma dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adigu kolba si baa loo sheegaya arrinkaas waxaa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idin sheego waxa waaye aniga Maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay Sharma iyo asxaabtu garanaysiin kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lix ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasina ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ay ku timid waxa waaye qofka bil aadanka haddii waqtigiisa dhamaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraha ma jirto waxa waaye halka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay Allah naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxaa dhacday in daaqadii furantay daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqada ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay shantii kale ay saarneed gaariga meeka ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa ay gaarin Sharmaaka Cabdi Naasir waxa waaye sidoo wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah garaad soo gaaray mid macalladka gaariga saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliya ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah u naxariisto ehelkeygana sameeyay iimaan ka siiyo حواي أنا في كل اللي هي صار إذا كل شيء أنا وقاري ما يسارني واحد يمسك الحمد لله أنا على القضاء أنا عارف ما القضاء لكن حولها يكسر يسوق بالشوك ينحلن أو هذا إلهي هذا يوجره حواي صدق له الحمد لله واي أرك كل اللي شرما الحبس لو كدرنا وحواي تخطر بعد عيو وفق بالآذن كان مثلنا هذا أما مدحبينا هذا الموسير هذا حواي هدوش الرعو qofka bilaadka wala xisaabtamaya arrinkaas Sharmana ugu xeeran yahay wax kale maaha gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay samada dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la safkartay gabadhiga alxamdulillah wala asay gabadhna soo haasnay labadii reerona way wada hadleen waan safkarteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa safkartay dhibaato meesha jirana ma jiraan Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bil aadanka markii dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka wala alkaaya ama cadowga la noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo
politic in lagu raadiyo fees laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aad fool xun weeye waxaan Soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii buunbuunin oo yaa wax lagu sii tirtirin qofba inaga baxay inaynu u ducayno oo quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumaxda ka gudbo waxaa waaye midda kale horta Sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada ogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaalay noqday oo walaal qaali ah wada nahay Soomaaliya shalay Sharmaake markaan Djibouti la aadayay Djibouti